waxaan noo qorshaysan bisha Maarso ilaa Juun inaan sameyno diiwaan gelinta codbixiyaha maadaama ummadda Soomaaliyeed aysan doorasho gelin intaasoo sano 50 sano ay noqoneen 69kii ugu dambeysay oo wixii 50 sano qofkii 50 sano ka yarba qofkii 50 sano jira iyo inta ka yarba aysan wax doorasho la yiraahdo ee aqoonin maskaxdoodana soo galeynin waxay u baahan tahay wacyigelin tiro badan oo aan bilawnay oo aan sameyno guud ahaan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 12 milyan ku dhawaad 2 milyan waxa way dibadda ka jirtaa ku dhawaad 2 milyan ama milyan ibar waxa way waxay jirtaa Somaliland qaxootiya jira waxa kale jira muxuu ahaa dad kale meelaha iskaga daadadsan waxa soo haraa celceliska waxay noqonay kama badnaanayso oo maanta Soomaaliya ku nool 6 milyan ilaa 7 milyan 7daas milyan iyo 6 milyan marka muxuu ahaa sida caadiga ah oo cilmiyan la darsay bulshada tiradeeda markaas nuskeeda codeyn kara haday 7 milyan yihiin 3 milyan iyo bara codeyn kara annaga marka waxaan ku rajooweynaa hadda oo ku dadaaleynaa in aan diiwaan gelino ugu yaraan 3 milyan ilaa 2 milyan oo qof oo codeeyo in aan helno gobollo badan aan ka soo sameeyay meelihii lagu codeyn lahaa goobihii lagu codeyn lahaa inta badan waa naqaan gobollo waa noo dhiman yihiin oo waa u soconaa oo waa wadnaa haday noo suura gashana waxaan rabnaa qorshaha sidoo noo masaabaxay in aan bisha Maarso aan bilaawno qalabkii lagu diiwaan gelinayo UN ku isla meel dhignay waa isla waxayna hadda tartamo iyo la geliyay adduunyada dadka qalabkaas biometric oo lagu codeeyo midka aan doorano waxa way wajiga qofka in la masawiro wajigaasna serverka loo diro oo la fiiriyo inuu qofkan 2 goor isdiiwaan geliyo inuu 3 jeer isdiiwaan geliyo oo la reebo qofkii oo hal qof laga soo reebo markaasna ID la siiyo marka technical ahaan hawshii annaka loo idmaday waa si fiican noogu mareysaa sidii aan ugu talagalnay ummadda waxa la rabaa marka inay ogaadaan qofka wuxuu ku leeyahay doorasho see ku dhici karta ama dhici karta waqti ay u baahan tahay waqti uma baahna waqtigii waa la soo qaaday 4 sano aan soo shaqeynayna 4 sano banoonina ma aanan dheelaynin soorna ma sarbinaynin waa shaqeynayna waa soo gaarsiinay meeshii laga rabay 4 sano waa soo gaarsiinay waxa haray waxa waay arrimaha siyaasadeed oo dawladdu ay madaxda qaranku ay ka heshiiyaan iyo muxuu ahaa sharciga doorashooyinka oo hadda baarlamaanka hor yaalo in la keeno oo baarlamaanka uu soo ansixiyo si aan ugu shaqeyno shuruuc badan oo aan diyaarinay aan nooga xirin inaan ku ansixino si doorashada aan u qabano